ورحمة الله وبركاته كيس النمذا ولا ليال موضوع إنه ما أنت وحكوا صعب سنان دونا شيء اللي يقانو كيس النمذا ما واحد اللغة العربية اللي يدهده الشجاعة ولا ليال مرك لقي حيو كيس النمذا أما لقى هذا يوحى أيتاي وحال يدهده الوقحة وإن القادة قوان رسمية قوان كاس وأدو قادته حق مستقبل كاغا كدبنا أتكون أغاقدا قوان كا القادتي أيا لو يقانا كيس النمذا هدي أينو صورو إنه كيس النمذا وحلو يقاننا وحويان ولا ليال waa in yaraad cagaha dhulka ku sii hayso taynu ogsoonahay inta aynu u xafaarayno nolosheenan ama aynu gaadhayno taargetka aynu ka leenahay noloshan waxayna soo wajihi doona oo inaga hor imaan doona dhibaatooyin waxayna u imaan doona caqabado dhibaatooyin fara badan iyo caqabado fara badan oo inaga hor istaaga mustaqbalkeena haddaba caqabadahaas kama gudbi karno kamana tallaabi karno ilaa inaga wadana mooyaane faashka ama seefta geesinimada haddii aynu geesinimo wadanno haddii aynu geesinimo ku dheehannahay wax kasta ama caqabad kasta oo mustaqbalkeena inaga hor istaagta waynu ka talaabsan karnaa waynuna ka boodi karnaa haddaba walaalayaal in aynu mustaqbal gaadhno inaynu yeelanno horumar inaynu hadaf gaadhno waxay u baahan tahay geesinimo inaynu shay walba ku wajahno geesinimo waxay u baahan tahay laftigeedu inaad geesinimo leedahay walaalayaal haddaba waxa laynooga baahan yahay inaynu noqono qof ama inaad noqoto qof wata hubkii geesinimada waayo haddii aadan hubkii geesinimada wadan waxaa dhacaysa inuu mustaqbalkaaga ku burburo halkan dhow waayo waxaa tahay qof aan wadan kalsooni nafeed qofkuna haddii uu wato kalsoonida nafta waxuu noqon doonaa qof shay kasta ka midha keena marka aynu noqonno dad wata geesinimada si aynu u gaadhno koobka guusha sayn uga midha dhalinno mustaqbalkeena walaalayaal saynu ogsoonahay shay kasta oo aynu u dhaqaaqno waxaa laga maarmaana caqabado inuu leeyahay shay kasta oo la isku dayo marka koowaad waa lagu fashilmaa marka waxay tiraahdaa carabtu laa najaaxa ilaa bacda alfashil guusha iyo horumarku ma yimaado ilaa marka aad guuldarraysata mooyaane marka haddii aad geesinimo aadan wadan marka koowaad marka aad guuldarraysato ayaad iskaga tegaysaa oo aad iskaga dhaqaaqaysaa mustaqbalkaaga laakiin haddii aad wadato geesinimo haddii aad wadato isu kalsooni nafeed waxaad noqonaysaa mid aan u joojin caqabadahaas iyo fashilkaa ku imaanaya marka waa laga maarmaan inaad wadato geesinimo inaad tahay qof dhiiran qof wax kasta ku dhiiran qof wax kasta ka midha keeni kara maquulo carbeed ama nin carbeed hadalkii ayaa ah الحياء كلها مغامرة جريئة أو لا شيء وحولي نك عربيد الحياء كلها مغامرة جريئة أو لا شيء نلشنا إنه كلون هاي أما إنه كل حسوان هاي كل جد واسمي ذا من عد أما وحماها مركان نلشن وإن اسكمي ذا مسا وإن تجيسينمو اسومي ذا مسا وحلي هذا قفكو وحو كمرجو ذا waxyaalihii aanu samayn ee uu samayn waayay inta uu noolaa waxyaalaha uu sameeyay ee uu ku guuldarraystay waxa uga muruga badan yahay ama uga nadaama badan yahay waxyaalaha uuna weligii qaban marka walaalayaal inaad wax kasta aad qabato inaynu wax kasta ku dhaqaaqno waxay inooga baahan tahay geesinimo haddii aynu samayn weynana mustaqbalkeena ayay galaafanaysaa waxa aynu noqon doonaa dad mustaqbalkoodii hadhiya habeenka walwala walaalayaal geesinimadu waxay dhistaa guryo dumay waxay dhistaa mustaqbalkaaga waxay hagaajisaa wax kasta oo ka mid ah noloshaada haddaba shay kasta oo ka mid ah nolosheenani waxa uu u baahan yahay geesinimo maadaama ay muhiim tahay geesinimadu ayna tahay waxa qura aynu ku xaqiijin karno mustaqbalkeena ama taargetkeena inaad subaxii toosto waxay u baahan tahay geesinimo iyo go'aan in aynu kitaab akhrisanno ama aynu shay ka faa'iideysanno waxay u baahan tahay geesinimo waayo haddii aadan geesinimo wadan ma akhrinaysid kitaabka ama waxa ka faa'iideysan maysid inaad iskuul gasho inaad wax barato inaad jaamacad gasho inaad mustaqbalkaaga sii wadato intuba waxay u baahan tahay geesinimo haddii aadan geesinimo wadanna waxba ka midha keeni maysid waana xaqiiqa la hubo in aad shay kasta
oo xun oo aan ku anfacayn, shay kasta oo noloshaada aan qiimo u yeelayn, shay kasta oo ku qiimo ridaya inaad ka tagto oo aad ka takhalusto, waxa uu u baahan yahay geesinimo ama go'aan geesinimo leh. inaad ku tiraahdo saaxiibkaa, haddii uu saaxiibkaa waxaan kula doonayo, anigu waxaa ma rabo, waxaana uma baahni, waxay u baahan tahay geesinimo. Saaxiibada kuu jiidaya waxaa xun, saaxiibada raba in ay kugu mashquuliyaan waxyaalaha maalayacniga, inaad tiraahdo anigu waxaan uma jeedo, wax wanaagsan ayaan u baahnahay, waxay u baahan tahay go'aan geesinimo leh. inaad ka tagto waxyaalaha khiyaaliga aad ku mashquulsan tahay, inaad ka takhalusto hadh iyo habeen mobilkan aad ku foorarto oo aad dhisato mustaqbal ifaya, waxay u baahan tahay geesinimo. marka walaal, haddii ay noqotay geesinimadii shayga aadka u muhiimtaa, waxaa loo baahan yahay mid kasta oo inaga mid ah inuu ku wajahan yahay ama ku dheehan yahay geesinimo. geesinimaduna waxay ka bilaabataa go'aan dhaba, go'aankaasina wuxuu ku xiga inaad ku dhaqaaqdo go'aankii aad qaadatay. taas ayay ka dhalataa geesinimada ama waxa loo yaqaano ashujaaca. haddaba wax kasta oo nolosheena dib u ridaya inaynu ka takhalusno, yana waxay u baahan tahay geesinimo. in wax kasta aynu dib dhiganno, wax kasta aynu leenahay hadhow aynu qabanaynaa, ama hadhow baan qabsanayaa, ama mustaqbalkaagan ku jira qiirqiirka aad leedahay berri baan wax samaynayaa, ama berri baan kitaab akhrinayaa, waxa uu u baahan yahay inaad ka takhalusto waxaasi go'aan geesinimo leh. waxaa la yidhaahdaa daci taswiifa wabda'i il'aan. ka tag dib u dhaca, ka tag berri baan qabanayaa, hadhow baan samaynayaa, saacad kadib baan wax samaynayaa, oo bilow hadda. waayo mustaqbalku wuxuu ka bilaabmaa daqiiqadda ku hor joogta oo aad ka faa'iidaysato. haddii aad ka faa'iidaysan weydana, saas ayuu mustaqbalkaaga kaaga tegayaa, waayo mustaqbalkaagu waa saacado la isku daray. marka wax kasta oo ina dhibaya inaynu ka tagno oo aynu ka takhalusnaa, waxa uu u baahan yahay geesinimada aynu ka hadlayno oo aynu sheegayno. walaalayaal, zamankan ama xilligan aynu loonahay waxaa la yidhaahdaa waa xilligii taxqiiqa. waa xilligii haddii aad isku daydo inaad meel gaadho, aad meel gaadhi lahayd. waa xilli wax kasta oo aad is leedahay bara ay horumarsan yihiin, adigoo gurigaaga dhex fadhiya ama qolkaaga, ama gabadh iyadoo wax karinayso gurigeeda dhex fadhida, ayay waxay noqon kartaa digtoorad, waxay noqon kartaa caalimad wax kasta loogu yimaado. ninku isagoo shaqadiisa ku jira ayaa wax noqon karaa nin caalima oo wax kasta ka jawaabaya. marka walaalayaal, wax kastana waxay u baahan yihiin geesinimo, kamana maarmayaan. marka waxaa la yidhaahdaa oo wanaagsan, wax kasta oo qiimo leh laguma helo ilaa dhibaato kadib mooyaane. mustaqbalkana laguma helo lagumana gaadho ilaa geesinimo mooyaane. mowduuceenu walaalayaal halkaas ayuu nagu joogayaa maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.